18 ماي همبليو وما صدق عبدي وكفنتر الراوند وهمبليو وهي حلتها 18 ماي وهو حلتها بالشارع سومالي لاند أيها وكل حلتها يا ميل والبا waxaan u rajaynayaa calanka iyo dawladda Soomaaliland nagi siyaarin calankoodu ka babada adduunka Soomaaliland halaalaato happy 18 May waxaanu leenahay waa gobonimo waa guul waa ictiraafkii waxa weeye qaranku wuu soconayaa waa midnimo ciidamada qaranka Soomaaliland maxaad faraysaa aad iyo aad baan salaamayna congratulations happy 18 May congratulations to who Somaliland calanka tawxiidka uu ku qoran yahay Somaliland maanta wuxuu kala xiran yahay caasimadda Yurub ee muslimiinta Birmingham hambalyo Somaliland Somaliland hal dhalato long live Somaliland halkan waxaan mahadnaq uga dirayaa inantii noo haystay habar yar waxaan ku leenahay thank you maxay hambalyo iyaduna u diraya inantii habareerka aanu hayn ee noo haystay maliyumaanka jir oo joog Somaliland waxaan ku leeyahay maliyuunay habar yar meeshii bugtiyo mililkii taabatay mahadsanid maliyuunay عاصمة برمجان بانشوغا وعاصمة لبادي هرقيسة مليون مانكا يس صدق ولي هبرير قولي يا قبنيمو 5 مليون أو Somaliland ركبضن رير أبتكاد ويفربضين داش الشيخ ودن محلية دوين شدنا ينشدا برمجان هرقيسة سوبر دشمانتا برمجان هرقيسة سوبر دشي أنا لا يفعل بين قصي Somaliland waxaa maanta ay taaganahay 18 May waxaan joognaa magaalada Birmingham waxaan halkan uga hambaleynayaa dhammaan shicibweynaha reer Somaliland meel ay joogaanba dibadda gudaba waxaan si gaar ah halkan u hambaleynayaa ciidamada qaranka sida ee dalka gaarka ka haya waxaan leeyahay hambalyo waxa ka soo wareegtay 3 sano maalintii aynu la soo noqonay gobonimada aynu 60kii aynu geynay aynan ku magaranaysaa guulaysanin marka waxaan leeyahay dhammaan faraha ku adkayno gobonimada aynu haysano dhammaanteen ka shaqeyno horumarka nabadgelyada walaalnimada walaalahan reer Soomaaliland waxaan leenahay hadii aynu dawladii ku heshiin weynay culmanihine nin walba halkiisa Ilaahay ku ilaaliyo noo haniyayna dawladnimadayada yaan cid inaga faa'iideysanin nin walba halkiisa waa ku filan tahay shantii Soomaaliyeed baan wadnay shantii Soomaaliyeed way suurtoobi weyday Djibouti dawlad gooniye noqotay kilinka shanaad ama dawladda Soomaalida Ethiopia dawlad bay noqdeen waa habi weeye Kenya waa saas oo kale dawladda Kenya ay kamid yihiin NFD waa habi bay ku yihiin xamar iyo Soomaaliyana waa saas oo kale dal ku filan oo beerale oo dawladii waliba la aqoonsan yahay way ku filantay dalkoodu marka waxay naga maqan inaynu aqal isticmaalo inaynu isu tahniyadeyno inaynu soo galaano hadii midnimadii socon weyday wixii aad ka maarmooyada la sameeyaa yaan cadowga inaga faa'iideysan aan isnabad gelino walaalaan noqono aan cadowga u heshiino yeynaan inagu cadow isku noqon aan iska saaro gaalada iyo dadka doonaya inay naga faa'iidaan khayr iyo barakaan u rajeynaa Soomaaliya oo dhan meel ay joogaanba dadka reer Somaliland waxaan leeyahay hambalyo dhammaantiin hambalyo baan leeyahay happy 18 May baan leeyahay meel kasta in joognaba Cabdirasaaq Ibraahim Axmed Birmingham Coventry anta sida la sheegay meesha ay dalka muslimiintu degan tahay magaalada Birmingham oo loo yaqaan caasimadda muslimiinta magaalada waa
marka dalka ingiriiska laga hadlayo waxaa maanta ay u shidnayd reer Somaliland ba u shidnayd calanka tawxiidka ku santan ee calankii Somaliland ayaa meel walba ka babanayay oo dadku way wada barteen marka rag iyo dumar iyo dhalinyarada yar soo koraysa dhamaantood calankoodii ku faaniyeen babinayeen waxaan leenahay guul iyo gobonimo dhammaan waxa la dadkeena reer Somaliland dal iyo dibadba hambali aan leeyahay dhammaan dadka reer Birmingham maanta annaga waa maalinteedii reer Birmingham baan nahay dhammaan qolqoljoog iyo qurbajoogba waan salaameynaa dhammaanteen dadkeena reer Somaliland waan salaameynaa dawladeena waxa la ilaahay idinkii waxay noqonaysaa tii hirgashay ixtiraafkiina maantadaas waaba nala ixtiraafay maanta waxaan anagu ka nimi Coventry ayaa aanu ka nimi soo hadda waxaad garatay maaha halkan waan damaashaad baan u nimi waxaan Birmingham baan ka hadlaynaa waxa weeyaan waxaanu salaameynaa Cabdi Askari oo ah muuqaal qaadaha ayaan halkan ka soo tabinaynaa dee lama maxaan idhaahdaaye lama malayn karo farxadda iyo waxa haddii aad dhulkaas wada sawirto dee waad aragtaa sidaanu imika suuqa dhan annaga haysanaa waxa aad yeelaysaan haddii Allahu yiraahdo dee saasaynu isku ognahay waanaanu idin soo salaameynaa ilaa madaxweynaha ilaa iyo ilmaha yar ee maanta 7 jirka ee hadalka baranaya waxaan ku faraxsanahay dee warkaan idin soo tabinayno idinna waxaan doonaynaa in maxaan dhahdaayay hadallada xaniifta leh ee dhulka la isu mariyo aad joojisaan dee qof waliba halkiisa uu ka guntado haddii Allahu yiraahdo Yes, Oh, Abdi, thank you very much. Thank you, bro. ما شاء الله. وين حفلته؟ يا. Coventry Road Smallhead gees ilaa gees maanta waxay u xiran tahay Somaliland Maxamed Xuseen Geel ayaa halka iga muuqda waa gudoomiyaha magaalada ayaan isna dareenkiisa wax ka weydiinaya uu kacsan yahay xitaa maqashiisa buu wataa gudoomiyaha ku soo dhaw Hambaliyo 18 May Hambaliyo 18 May Hambaliyo Eid Mubarak everyone waxaan hambaliyo diraya waxaan qaranka Soomaaliland waxaan diraya hambaliyo ciidanka Soomaaliland waxaan diraya hambaliyo everyone Somaliland everywhere Somaliland hambaliyo 18 May hambaliyo وما صدق عبدي وكفنتري الروض وهمبليو وهي حرنتها 18 ماي وهو حرنتها بالشارع سوماليلاند أيها وكل حرنتها يا ميل والبا weli waxaanu dhex mushaaxilna magaalada Birmingham iyo munaasabada dabaaldega 18 May Smallhead Coventry Road haye maxaad oranaysaa munaasabada 18 May waxaan u rajaynayaa calanka iyo dawladda Somaliland nagi siyaarinu calankoodu ka babada adduunka hambaliyo What you gonna say? Happy 18 May. Happy 18 May. Happy 18 May. Somaliland halalato. Somaliland guliga gabinama wiliga jiro joog. Happy 18 May. Happy 18 May waxaanu leenahay waa gobonimo waa guul waa ictiraafkii waxa weeye qaranku soconaya waa midnimo waxa weeye qaranka Somaliland wuu soconaya doorashada waxa weeye maanta meel waxaan bay Somaliland maraysa waanu ku faraxsanahay maanta waa maalin farxad leh waa maalin midnimo waa maalin la wada joogo waa maalin qarannimo ha noolaato Somaliland Somaliland guliyo gobonimo weligeed leemaysa Somaliland waayahay wadada dheer ee Coventry ayaan weli dhex soconnaa oo ilaa dhowr mayl baan soo jirnay halka ay jamaahiirta Somaliland
isku ballansatayna weli maanan gaadhin Happy 18 May! Anolato Somaliland. Somaliland hanolato hajirto hajogto insha Allah warfa amba garina. هلا تسمعنا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هيا هابي 18 ماي هابي 18 ماي هيا هابي 18 ماي عيد ماذا قرك سومالي نحط فريسه عاد يا قول سلام عليكم حدودك ان شاء الله عاد نصيتي كان لولايا كان ليا هاي كان لولايا كان ليا هاي Happy 18 May! Everyone, be peaceful. Congratulations to Somaliland. Congratulations. Happy 18 May. Congratulations to who? Somaliland. Thank you. What channel is Yeah. What channel? Abdi Askari Tube. Abdi Askari Tube. Thank you. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم همبليو 18 ماي وناكسن لما شعبوينها رئيس سوماليلاند gudaha dibadba waxaan leeyahay hambalyo ilaahay horumarkaaynu gaadhnay iyo midnimada haynoogu wado guul reer Soomaaliland guul shacabka reer Soomaaliland السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر دوادا مات 18 ماي برمنغهام كومنتري رود halkan xaflad soo baxa oo banaan baxa aanu ku qabanay oo kumanaan qof ku yimaadeen calamadoodii dadkoodii heesahoodii bomboonintoodii wax walba waanu qabanay aad iyo aad baan u faraxsanahay qof walba waxaan ku leenahay happy 18 May waxaana nagala qayb soconaysaan caawana xafladooyinka socda jazakallahu khayran salaamu calaykum happy day calanka tawxiidka uu ku qoran yahay Soomaaliland maanta wuxuu u kala xiran yahay caasimadda Yurub ee muslimiinta Birmingham hambalyo Somaliland dhammaan shacabka Somaliland Somaliland hal holato. Long live Somaliland. Happy 18 May. Happy 18 May. Somaliland hal holato. halkan waxaan mahadnaq uga dirayaa inantii noo haystay habar yar waxaan ku leenahay thank you mahadsanid malyuumaanka بسم الله الرحمن الرحيم وحن ما أنت وهم بلينا صدق صدق جوردي سوماليلاند إلهي وحن كبرنا قولي قبنيمو وحن هالكهم بليا وقدر يا متحوينها سوماليلاند موسى بيحي عبده وحن هاي هم بليا يدنا ودر يا إنتي حبرك عنو هاي نوه سي مليومانكا تير أوتشوك Somaliland waxaan ku leeyahay malyuunay habar yar meeshii bugtiyo mililkii taabate mahadsanid malyuunay maankay malyuunay ha Somaliland hanalato happy 18 May thank you هيا adu maxad haysaa Somaliland hanalato thank you happy 18 waxaan ka salaamay madaxweyne Somaliland happy 18 Somaliland ha guuleysto Somaliland ha guuleysto hanalaado kana lulaya kana leeyahay kana lulaya kana leeyahay kana li ayn kana limisida kana kulada haya siraad haya caasimada Birmingham baan jooga waa caasimadii labaad ee Hargeysa waa wadanka yagii labaad ma sha Allah waxaanu leenahay 3 guurada 18 May ayaanu happy ku faraxsanahay ma sha Allah waxa kaloon halkan aad iyo aad uga salaamaya inantan habaryarka u hay malyuumaanka yes soo dhawow leeyahay habaryar guuliga gobonimo
5 milyan oo Soomaaliland dara ka badan reer abdigadu way farabadan dhasha sheekh oo dhan maanta caawa waa meeye calanka kor u qaada waxaanu leenahay happy 18 May waxaanu ka soo hadlaynaa magaalada caasimadda labaad ee dalka Ingiriiska Birmingham waxaanu leenahay ha jirto oo ha joogto Soomaaliland ilaa saaka waanu taagana ilaa caawana waanu taagnaan doonaa waxaana deeqda Soomaalilandnimada ayaana deeqda intaanu habaryarka u nahay milyan maankana habar waanu kugu faanaa thank you very much dhiiga maya waan ka xishaanayaa dadka وجه قرح بدأ بتشري دمانت مع عاصمتي هرجيسة ماشي سكوب الدشي وحنا ليه هرجيسة هالنولاتو سومالنا هالنولاتو ووضن شراء يعني لقد دور انتاس مركاد دتكي انتي كحمو سومالنا هالنولاتو وامي عوامي على كرق هذا عينو وذا عيدي على كرق هذا هي وامي عوامي علنك كرقادة علنك كرقادة عينو والعين وكي قرن كده ABD بقى ABD maanta waa maalin weyn 18 May ee Soomaaliland warkay la dib uga soo noqotay xorriyadda dib uga soo noqotay 1991 maanta meel kasta waxaan leeyahay heer Soomaaliland meel ay joogaanba happy 18 May sanad guuro wacan waxaan rajaynaynaa insha Allah bidmillaah sanadka dambana اعتراف iyo horumar iyo wanaag iyo bashbasho barwaaqan heshiinayaan u rajaynayna heer Soomaaliland meel ay joogaanba dhammaantood meel ay joogaanba waa salaamaya waxaan leeyahay sanad guuro wacan Bismillahir Rahiim halkan waxaan ugu hambalyeeynaa dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan caalamka waxaan leeyahay happy 18 May waxaan si gaar ah aanu hambalyeynayaa ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah runtii lafdhabarta uu qaran ku taagan yahay waxaan leeyahay guuleysta insha Allah sanadkiisana waxaynu xusi doonaa inagoo xadkeena tagnay oo soo xidhnay xadkii dhammaan reer Soomaaliland meel kasto ay adduunka dushiisa joogaan waxaanu leenahay happy 18 May halkan waa Birmingham wadanka Ingiriiska iyo carriga wadanka Ingiriiska dhammaan waxaanu ummadda reer Soomaaliland leenahay happy 18 May meel kasto aad joogtaan ciid mubaarak waxa isku mid noqotay imika yawmul ciid bay noqotay 18 May aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaanu maanta kala qayb galno dadkayaga in maalinta munaasabadda 18 May waxaan ku soo gabagabeynayaa dhammaan happy 18 May bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan maanta halkan ka salaamayaa shacbi weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ugu tahadinayaa munaasabadda maalinta qaran ee maalinta 18 May waxaan leeyahay baga ayaad ku gaadheen maalin weyn maalin qaran waxa kaloon xaggan shacbi weynaha Soomaaliland aan uga farayaa inay qarannimadooda ilaashadaan insha Allah waxaan ka rajaynaynaa maalinka sanadka xiga inaanu ictiraaf barwaaqo bashbash iyo nabad ku gaadhno waxaan leeyahay mar walba aynu qarannimadeena ilaashano doorashooyin baa inagu soo socda waxaan idinku bogaadinayaa inaad si adag uga qayb qaadataan qarannimada ay noo ilaalisaan waxaan rajaynaynaa nabad iyo wanaag wassalaamu calaykum waraxmatullah Soomaali 18 May Somaliland ma kasii joogaan khaasatan reer Hargeysa aad ba salaamantihiin waxaad leeyahay sanad guuro wanaagsan waxaan maanta halkan ka salaamayaa munaasabadda 18 May ee maalinta qaran ah ee dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan gudo iyo dibadba qolqoljoog iyo qurbajoog waxaan ilaahay inooga baryayaa maanta maalinteeda sanadkiisa inaynu ku gaadhno inagoo gacmaha is haysana inagoo ictiraaf buuxa helay inagoo waxa weeyaan intan ka sii wanaagsan inagoo waxa inaga dhiman iyo waxa weeyaan waxyaabaha aynu u baahannahay oo dhammaan inoo hagaageen guul baan inoo rajaynayaa dhammaan mucaarad iyo maxaafad inaynu gacmaha is qabsanno waxa weeyaan dad badan baa maanta u haysta inaynu 18 Maygan ka duwanaanaynay 18 Mayyadii hore
oo aynu mucaaradnimada iyo arrimihii yaryaraha ee dagaaladii iyo waxyaabihii nagu soo kordhay moodaya inaynu ugu wiiqmayno laakiin taa waxa weeyaan maanta inooma taallo waad aragtaan inaynu sidii hore iyo si ka sii wanaagsanba aynu nahay waddankeenni waad arkayseen maanta si gobol aan laga soo dabaxnayo degmo aan laga soo bannaan bixini may jirin intaasaynu ka sii xoojinaynaa doorashooyin baynu waxa weeyaan sugaynaa guulo waaweyn baynu insha allah gaadhi doonnaa sanadkiisa inoo gacmo is haysanno ka sii wanaagsan bashbash iyo barwaaqo ayaan inoo rajaynayaa insha allah dhammaanteen iyo inoo gacmo is haysanna bismillaahi raxmaani raxiim somalilan ha noolaato somalilan ha noolaato somalilan ha noolaato dhammaan waxaan salaamayaa reer somalilan qaranka somalilan meelay joogaanba waan salaamayaa waxaan leeyahay habbi 18 May meelaad joogtaanba sanad cusub baan idin rajaynayaa meelaad kala joogtaanba waxaan gaar u salaamayaa ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda somalilan ee furunta jooga meel kasta joogaanba ciidanka qarankaan salaamaya dhammaan reer somalilan madax iyo majo meelay joogaanba waan salaamaya waxaan leeyahay kelmadayda haddaynu nahay mucaarad iyo haddaynu nahay muxaafido maanta waa inoo midow maalinta somalilan waa midow aynu midowno aynu gacmaha isqabsanno wixii kale gala jiidanaya waa iska xusbiyo iyo wax ka hooseeya laakiin qaranku meeluu joogaba aynu ka midowno meel wada joognaba dhammaanteenba difaaca qaranka iyo ciidamada qaranka ee siida hore jooga iyo meel la joogaba waxaan leeyahay noolaada salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa siciid maxamed xiriis siciid kuuriya ku sugan magaalada birmingham caasimadda labaad ee boqortooyada ingiriiska waxaan maanta halkan ku xusaynaa jaaliyadda ballaadhan aad aragtaan dhabarkayga ka muuqata iyo dadka ilaa iyo halkaa aad aragtaan baabuurta waxaa calan meesha maraya waxa weeyaan waa 18 guuradii somalilan 30 sano nabadgelyo ah kala dambayna barwaaqo ah doorasho ah qor isku dhiiba waxaan mar labaad halkan ka salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan Muuse Biixi Cabdi madaxweyne ku-xigeenka mudane Saylici waxaan aad iyo aad u salaamayaa saddexda golo qaran golaha xukuumadda golaha baarlamaanka golaha guurtida waxaan leeyahay guul iyo gobonnimo somalilan oo ictiraaf heshiiya sanadka dambe rajaynaysa magacaygu waa Mr. Wagar halkan waxaan joogaa magaalada Birmingham waxa aragtaan halkaa ka damaashaadaya waa dadkii reer somalilan ha noolaato calanku ha noolaado ha jirto sanadkiisa ilaahay ha inagu gaarsiiyo caafimaad qab iyo wanaag ilaahay inagu gaarsiiyo waxaan leenahay soomaalida kale sida yadaa yeeloo noolaadoo war noolaadoo ka baxa xinka ka baxa xasaradda ka baxa xumaha ka baxa wanaagga nagaga dayda somalilan ha noolaato ودرارتي للتاجي ردي عالمكيني دلانكينو نبض كوسس Happy 18 May baan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliland halkii meel kasta ay ku nool yihiin maxaa kale Birmingham maxaa leedahay waxaan leeyahay dawaynu sidanayna sida ay Birmingham oo Hargeysa soo badashay maanta dhammaan Hargeysa soo badashay anada level bay noqotay Somaliland Happy 18 May Happy 18 May Happy Somaliland, happy 18 May. Somaliland maxaa leedahay
kana lulaya kana leeyahay kana lulaya kana leeyahay kana li ayn kana li misida kana kulada